wasiirada wasaaradaha beeraha xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyada iyo boostada oo baryahanba kormeer howleed ku joogay Boorama ayaa maanta ka waramay socdaalkii muddada ay ku guda jireen howlahoogii shaqo ay ka wadeen gobolka Awdal. Saddexda wasiir oo faahfaahinaya waxyaabihii u qabsoomay intii howlaha qaranka ay u hayaan ay wadeen shir jaraa'id ay qabteen ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay wasiirka xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyada علي حامد جبريل وحاونا الشاقين waxay ahayd inay ku yimaadaan qaab xisbi oo wadaniya oo ay intii dalka ka wada jirtay oo kala wada duwan gobolada dalku ay wada yimaadaan laakiin qaab xun bay ahayd iyagoo eriyadii ay la yimaadeen magaalada Boorama ay hayeen ay ka tashi taasi oo nidaamka sharciga baalmarsan oo aanu leenahay ay ka tashiga Boorama ay la yeelanayaan wax laga aqbalayna maaha waxaanu ka soo horjeednaa oo cambaaraynaa qaabka qabaayileysan ee qabaayilka ay u socdaan iyo wada huwan oo leh hebel baanu nahay waarin xaaraana waayo kuwa ay ku abtirsanay shaqadeeyaba kuwa ila mid ah jiro golaha ila fadhiya oo dawladda ila jooga oo ila mid ah xagee kaga yimaadeen wada dhaqameedada waxa leeyahay markaas wada ma kartaan Boorama magaaladiini wada ma kartaan xilli kaste goor kaste leeydi kaba xigo odayaasha galbeedka burco ee qaadka u socday haddaanay bariga ila arki karayn aniga waxba iima hayaan sidoo kale wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgaal ayaa waxa uu yiri waxaan qabaa halkan Boorame dhibaato qaranka wax ugu maqan oo jira ma jiro maanta anaga xukuumadda ka mas'uul halkan joogna waanu isfahamsanahay sida saxda ah ee dariiqa saxda ah odayada iyo dhaqanka isku fahamsanahay shaqadooda iyo xilkoodana waa uga dambeynaa annagana taayada iyo way nagu ixtiraamayaan haddii xaajadu ay tahay kolba ninkii xilka qabtaa nin khaayiraho reerkooda iyo odayada iyo waxa xumaynaya xaajadaas bari hore ay jirtay ma aha maanta oo odayada dhaqanku waxay siteen ay wax ku reebeen ee ay tabanayeen waxa weey waa dawladdan weey وحاجة سوق اللوحسميسين 20 سنة soo socotay ma aha lacag madaxweynaha jeebkiisa ku jira doontaan oo jeebka intuu galiyo iminka u dhiibay maaha wasiirka beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Goodoole ayaa waxa uu yiri u saaray fariis ninka weyn qiimaha leh marka uu kelmad ku hadlayo kelmadda intayna afkiisa ka soo bixinayna 3 milyan oo qof iyo ka badan buu wax sheegayaa waxaa habboonaan lahayd inuu waxaan afkiisa ka soo baxaya oo qiimeeyo guddidaasi 6 jeer bay fadhiisatay lama dhayalsan arrinta madaxweynuhu qiimo weyn buu siiyay odayaasha anaguna odayaasha waanu ka dambaynaa oo arrintoodaasi madaxweynaha hortiisaan ka sheegnay inay tabashadaasi ay tahay mid xaq u leeyahay waxaanu ka digaynaa waxaanan ka jirin goboladan galbeedka aanan ka jirin in la abuuro leedahay ka jiraan TV-ga qaranka